kulanti wacan daawadayaal iyo dhageystayaal ha ku soo dhawaada warbaahinta Daljir waxaan maanta barnaamijka martisoor ee warbaahinta Daljir ku marti qaadnay siyaasiga hogaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ku soo dhawaad mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur marka ugu horeysa Daljir wandhow walaal ma santahay waa kuma marka ugu horeysa Cabdiraxmaan Cabdishakuur taariikhdaada bal oo kooban bismillaahir rahiim dabcan aniga deegaan ahaan Soomaaliya waxaan ku dhashay gobolka Hiiraan degmadiisa Buulaburte halkaasaan wax ku bartay ilaa tacliinta sare kadibna ardadii imtixaanaadka u gashay jaamacadda Soomaaliyeed baan ahaa laakiin waxbarashadayda jaamacadda waxay ka bilaabatay Suudaan waxaan Malaysia ku sameeyay masterka ninkan hadda odayga cali masaarkiisa ka soo qayb galay Saciid Cabdullaahi dadkii halka masterka ka wada sameynayay baan ahayn kastoo aan kala jaamacad ahayn ka bacdina waxaan dalka UK u wareegay oo koorsooyin kale iyo seminaar la xiriira arrimaha hoggaanka iyo xalinta colaadaha iyo waxyaalahaas la saabsan aan ka sameeyay marka ka bacdina siyaasadda waxaan soo galay qayb ka ah isbahaysigii dib u xoreynta lagu dhisay Carta gudoomiye ku-xigeenka waxaan ka noqday golaha dhexe halkaasaan iyo hoggaankii wada hadalka Djibouti dawladii lagu soo dhisay oo wasiir ka noqday ka bacdina ilaa xilligaasna siyaasadda siyaabo kala duwan yaan ugu jiray ilaa aan ugu wareegay qaramada midoobay inaan ergeydii gaarka ay soo maray la taliyaha sare xagga siyaasadda aan u noqdo deegaankan Puntland waxaan ku imid markii ugu horeysay Garowe arrimihii doorashooyinka UN ka anoo ka socdaan joogay ayaantii la isku haystay 4.5 iyo deegaan doorashada oo degmooyinka la isku haystay dadkii arrimahaas wax ka xalinayay laakiin marka dhinaca qaramada midoobay aan ka socday marka halkaas ay maraysa haddana hoggaanka xisbigaas aad sheegtay aan ahay wayahay xisbiga Wadajir ayaa caan ku tahay oo hogaamisa bal ka waran xisbigaasi iyo mabaadi'diisa guud si guud noola wadaagay xisbiga Wadajir wuxuu u taagan yahay principle qoran anaga dastuurkeena waa faafsan yahay bar ayaan leenahay lagala soo xiriiro warbaahinta oo Facebook oo www.wadajir.org liiraado iyo Facebook iyo Twitter account intaba afkaarteena iyo waxaan u taaganahay halkaas ayaa lagu faafiyaa laakiin hadaan soo koobo waxaan u taaganahay anaga soo noqoshada dawladda Soomaaliyeed oo sareynta sharciga iyo dastuurka ku dhisan iyo hanaanka dimuqraadiga ee lagu dhisay nidaamka madaniga ee civic value ama qiyamka madaniga ku dhisan oo dadku inay xor yihiin dawladuna ay sharci ku taagan tahay dastuurkana uu sareeyo midnimada dalka Soomaaliyeedna ay tahay mid la ilaaliyay iyo madax banaanidiisa intaba siyaasadana looga qayb galo hanaan furfurnaan iyo aan ku jirin caburin iyo maaragtay awood sheegasho dawladeed aysan ku jirin hanaankaas ay Wadajir u ah inta laga gaarayo qof iyo cod dalka Soomaaliyeed oo madaxda la soo doortay ay noqon doonaan madax lagu doortay qof iyo cod ay dadka Soomaaliyeed siiyeen awood buuxda ama mandate waxa la yiraahdo afka qalaad la siiyay waxaan rabnaa in dalka taas inta uu ka gaarayo inuu ku sii socdo is-ogol iyo isla gudoon oo talada la isla gudooniyo dadkuna is ogolaadaan oo directionka dalka loo wadayo mid la isla ogol yahay oo yahay qolo kaligeed ama koox kaligeed waa soo aragnay koox qabiil ama koox diineed ama koox si kale u abaabulan oo talada dal kaligeed inay la wareegto damacday wixii ka dhashana waan aragnay laakiin in is ogol iyo isla gudoon ay ku socotaan rabnaa ilaa laga gaaray doorasho qof iyo cod hagaag waxaad ku sugan tahay Puntland maalin ka hore ayaad soo gaadhay Garowe arrimaha cali masaarka madaxweynaha Puntland Saciidina ayaad u timid ma lagu casuumay misaadaas xilqaamay ma waxay casuumay maamulka iyo guddiga qaban qaabada xafladda ayaa casuumay casuumad baa ku timid hagaag socdaalkaagu hadalhayn badan buu dhaliyay maalmihii aad imaanaysay baraha bulshada ayuu ku faafay amaro ka soo baxay saraakiil boolis baa jiray oo ku aadanaa inaan calaamada xisbiyo wax xisbiya siyaasadeed lala gelin garoonka gudihiisa maxaa ku gaara oo hadalhayntaas u dhaliyay socdaalkaagu walaadii waxaa la rabaa inay taas dadkii ficilka qaaday ka jawaabaan dhalinyaro badan oo taageerayaal ah oo isxilqaamay waa laga joojiyay qaab xisbi inay isku abaabulaan Wadajir ah waxaa la yiri dadka la casuumay waxaa loo casuumay ka soo qaybgalka xafladda kaliya laakiin in ay muujiyaan taageero gooni ah oo u muujiyaan xisbi ama shakhsi lama ogola
saasaa marsiyo looga dhigay calamadii soo qaateen iyo wixii kale oo tilmaamayay inay muujinayaan taageerada xisbiga waa laga hor istaagay laakiin dee maalin kadib waxaa soo degay madaxweynaha dowladda federaalka ah si oo uun xisbi camal ah oo inuu ololo doorasho lagu jiraana soo dhaweyntiisa igula muuqatay aniga marka mid dheelitiran ma ahayn dadka in qaarna laga xanibo dadku inay soo dhaweeyaan qaarna loo ogolaado dabcan isagoo madaxweynihii qaranka oo hadeerto xisbi iyo waxaa dadkoo dhan oo madaxweyne u yahay markaa in si gaar loo maamusamay diidantaysa maamuusku waa kala labo soo dhaweynta funaanadaha la isku buufiyey iyo agaasinka aan u jeedo wuxuu ahaa mid oo abaabulan qaab doorasho in lagu jiro kale madaxweynahana inuu ogaada xilli doorasho laguma jiro madaxweynuhu wuxuu u yahay in protocol wixii ah oo helawaan la yaqaanaa protocolka maamuuska soo dhaweynta madaxda laakiin ka badbadisaa jiray waxaad dhacday inaadan ka mid noqon dadkii khudbadaha ka jeediyey munaasabadda waana lagu cusub sidee ku dhacday inaad khudbadaad iyo aad weydo walaa khudbadayda runtii tafaasiil badan hadda inaan sheegay diyaar umihi laakiin waxa dhacay laba maalin issue ahayd taagan qadiyo taagan dabcan ma filayo madaxda cusub ee maamulka Puntland inay wax dhiba ku ahayd inaan ka hadlo madasha la isugu yimid inkastoo madasha nafteeda lagu xadiday ama lagu koobay inay noqoto maaragtay mahadcelin iyo tahniyad dirid kaliya ay dadkii meesha ka hadlay madaxda ama hogaamiyaasha qaarkood bay si u dhawaajiyeen hadalkii laakiin aniga casumaadeydiina dhibaato weyn keentay oo maamulka u keentay oo la leeyahay maxaa loo casumayaa hebel iyo qofkaas asaga ah waxay kaloo markaan hadalkaygiina wuxuu dhaliyay dood aad u fara badan oo dad badan oo ka tirsan nidaamka hadda jira dowladda wasiiro leh xildhibaano leh siyaabo kale leh isku dayaya inay saameyn ku sameeyaan maamulka ilaa dee markay dambe madaxtooyadii ay soo faragashatay oo isku xirnaatay aniga hadalkayga iyo kasoo qaybgalka madaxda qaarkeed oo isku xirnaaday oo saas loo muujiyey aniga go'aansaday marka hadalkaaga iyo kasoo qaybgalka madaxda qaarkeed iyadoo la jeeda cadee maayde madaxda meesha timid waa la yaqaanaa hadda inaan saas hadda u siita tilmaamo doonaya laakiin waa isku xirnaayeen isku xirnaankaas wuxuu keenay dee in xafladda dee waxaa loo dhigay waa caleemasaar ma ahayn xaflad siyaasadeed xaflad la caleemo saara madaxweyne loo tahniyadeeyo doorashadii ka dhacday Puntland lagu dadka loo hambaliyay ay ahayd laakiin waxaa moodaa annaga kasoo qaybgalkeena intaas unbuuba ku wajahnaa inaan dhahno Saciid waa madaxweynaha la doortay waa inaan isnaqaano ka sokow xataa siyaasadda iyo inaan hogaamiye xisbi ahay ka sokow waa inaan cilaaqo iyo saaxiibtinimo dheer iyo aqoon naga dhaxaysay marka in message-ka meesha risaalada socotana waxay ahayd fariintana in la mahad celiyo oo la tahniyadeeyo kaliya ku akeen laakiin waxaa moodaa xisbiga wadajir iyo hogaankiisaba inay si gooni u beegsanayso filla Soomaaliya dhaqaaqiisa iyo socodkiisa iyo meesha uu tagay iyo meesha uu ka hadlay iyo in lagu haayo waxaad moodaa mana qarsanata shacabka Soomaaliyeed waa wada ogyihiin marka dadkii idin casumay iyo madaxdii Puntland oo madaxweynaha shatiina istiqaan arrinta ma ka wada hadasheen ka hor intaan xafladdu leeyahay waa ka wada hadalnay si fiican waataan ku heshiinaba dee in xafladda maadaama aanan la qashqashinay dhibaato ku imaanin si ay u noqoto xaflad sidii loogu talagal u dhacdo hadday jiraan dad cuslaystay aniga hadalkayga in aniga fududeeyo xafladda sidii la rabay ay ku socotaan marka adaa ka tanasulay madaxda Puntland u tanasulay saasaan ku heshiinay madaxdaha maxaa caqabadaha aad ku ahaan lahayd haddaad adigu hadli lahayd oo dadka aad ku eedaynaysa inay ku dhibsanayaan ama ku beegsanayaan adiga tan hadda meel kasta igu daba joogaan waa la socotaa waxaa maray dagaal Muqdisho caasimadda igula galeen oo hadalkeenay joojiyeen waana soo weerareen seminaarkii ay joojiyeen oo la socotaa aan dhalinyaro ku tababaraynay Nairobi nooga daba tageen oo caqabada dhigeen marka dadkii un baa socdo madaxtii waxaan anigu ka naxsanahay in madaxtooyadii iyo madaxweynihii Soomaaliya ku mashquulsan yahay kaliya xisbi wadajir xagga u istaagay Cabdiraxmaan xagga ka hadlay iyo salaamay iyo la sheekaystay iyo la hadlay taas ayaga la rabaa in la weydiiyo mar walba oo damacdeen shir jaraad qabato ama aad shirar ku qabato meel ka mid ah dalka iyo xataa wadamada deriska waxa ka dhasha buuq iyo qaylo ayaa la maqlaa dad ku taageersan oo adiga ku difaacaya iyo kuwo badan oo ka soo horjeeda oo adiga ku naqdinaya baraha bulshada isku dhaafsan muxuu Cabdiraxmaan mar walba u yahay mid buuq dhaliya waa su'aal fiican
annaga waxaan rabnaa siyaasadda Soomaaliya gacan ka hadal ay ku socoto 22 sano la soo dhaafay ilaa haddana qaar ah wada gacan ka hadalka kooxdaas waxaa la yiraahdaa al-shabaab halkan Puntland waxaa ka jira niman la yiraahdo Daesh inkastay noo soo gudbeen nafteena labadaas koox kaliya hadda siyaasadda Soomaaliya gacan ka hadalkeedii ku haray inta kale waxaa la isku raacay siyaasadda inay noqoto siyaasad si furan oo dadku fikirkooda isdhaafsadaan afkaartooda isdhaafsadaan oo qofkii haayo fikir wanaagsan suuqa uu soo dhigo waxaan rabnaa inaan u gudbo nidaam xisbiyo badan oo xisbiyada ay ka qayb galayaan arrimaha siyaasadda waad garan kartaa xisbiga macnihiisa waa maxay waa inuu ajenda leeyahay waa inuu sameeyo campaign iyo loolan waa inuu fikirkiisa gudbiyo waa inuu aragtidiisa dhiibo marka waxaa rabaa dadku inay ku mashquulaan marka aragtida qofka ma inay qofka ku mashquulaan war muxuu qofkan soo bandhigay aragtidiisa maxay tahay waxa la naqdinayo la diidayo marka waa aragtida waan diidanahay waan ku raacsanahay laakiin in badan dad badan oo aragtida taageersan waa arkay dad badan oo aragtida dhaliil karna way jiraan laakiin dawladdu ama madaxtooyada inay isku mashquuliso maaha xisbigan iyo hoggaankiisa xagee tageen iyo la sheegeen waxa ay diidan yihiin oo afkaarta ah waa inay soo bandhigtaan madaxweynaha hadduu doonayo inuu fikirkii ka fiican hayo oo dadka Soomaaliya u sheega anna haddaan kiisa mid ka fiican waa inaan dadka xukunta inuu waa sida ugu dambeeyay marka waxaa jira khilaaf shakhsi ah oo idin ka dhaxeeya adiga iyo madaxweynaha maya ma ogi khilaaf shakhsi oo aniga ma jiro madaxweynaha maalintii laga dhigay ra'iisul wasaaraha waa laga yaabaa anigu nin xildhibaan oo siyaasi oo baarlamaan ku jiraan aha waa laga yaabaa dadkii asaga markaas siyaasadda isku yara qabteen inaan kamid ahay dabcan anigu waxaan dadka Soomaaliya ka qarinayna u sheegaya dadkii Kampala Accord kamid ahayaan ahay oo lagu bixiyay prime ministerka markuu ahaa farmaajo waxaan u hadlayeen waxay ahayd guddi baarlamaanka Soomaaliya soo saartaan ah aniga oo 5 qofood ah oo hadalka Kampala qayb ka noqday waa laga yaabaa asaga inay wali ku taagan tahay maadaama uu la dagaalay ninkii markaa gudoomiyaha baarlamaanka ahaa Shariif Xasan Sheekh Aadan oo siyaasadii hadda inuu ka bixiyo oo aaminsan yahay asaga aniga ninkii labaad ee markaas Kampala Accord ama hadalkeeda ama negotiationkeeda ku jira aan ahaa waxaan u arkaynay maalintaas farmaajo inuu baarlamaanka Soomaaliyeed oo xaqiray oo ka hor yimid marka waxa laga yaabaa inuu asaga taas arsigaas inay maskaxiis ku jirto marka waa laba biyo hoos iska haratay iyaga iska ka ogmay waa dhici kartaa laakiin aniga wax kale oo isku nimid farmaajo oo ka ahayn in oo Kampala Accord ka baxsan ma jiraan laakiin dad badan waxay fasirayaan inuu dadka ciilka u qabay oo dhan oo kamid yahay madaxweynaha hadda xilka halkan ka degay gaas oo kamid yahay Shariif Xasan oo anigu aan kamid ahay dadkii inuu beegsanayo waagi oo siiri siyaasadda ay kugu yara dhiban waa dhici kartaa mar walba oo aad hadlayso oo dawladda arrimaheeda dhalayso waxaad si gaar ah u dhalashaa farmaajo maxaa sababay dawladdu farmaajo kaliya ma waa su'aal fiican farmaajo waa ninka la doortay dadka Soomaaliyeed dadka ay baarlamaanka si indirect ah doorashadii ku dhacday cidda la siiyay mandate-ka dad badan oo Soomaaliyeed waxaa jira waa asaga dad ka dambeeya dhaha ama dad kala gadaal ugu jira asagu talab male asagu go'aan male asagu karti male dad haba jira laakiin aniga sideedaba cidda mas'uulka waa cidda la doortay cidda la xisaabtamay waa cidda la doortay aniga ka hogaamiye xisbi mucaaradan qofka aan siyaasadda aan dhaliilay waa asaga ma ahan dad aan la dooran aniga sababaan u dhaliilay ma jiraan marka qaar soo ma dhici karta inaad dad aan ay galaan talaabo aad marka adigu khalad u aragto usan isaguna marka ogeyn ama uusan amar soo farin dabadna aad eed isaga dusha u saarto usan lahayn waa dhici karta laakiin waxaan rabaa falcelinta aan u qiyaasaa hadduu madaxweynuhu ka falceliyo oo yiraahdo tusaale ahaan hadda gurigayga la soo weeray hoygayga aniga dadaa ku dhintay madaxweynuhu saraakiishii soo weerartay uu dalacsiiyey marka waxaa ii muuqata inuu raali ka yahay hadduu marka asagu ogeyn adigu hadaad ficil samayso adigu ficilka aadan ogeyn falcelinta laga gartaa inaad ficilka ogeyn hadaad falcelis kaaga noqdo mid u jawaabay inaad ogeyn dadku way ku garaabi karaan anna waan garaabi karaa laakiin hadaan arko dadkii ficilka geystay ama falka geystay oo la sii dalacsiinayo rankigi dawladda meel sare sharci daradii la xoojinayo waxaan u arkaa marka inuu asaga oo qayb ka yahay marka la eego dad badan oo arrimaha naqdiya mas'uuliyiin dawladda ay ku jiraan waxa hadalkooda u dhaca in aad tahay nin shisheeye u adeegaya say u dhahaya oo dawladda shisheeye ku xidhan ma dawladda shisheeye ku xidhanta waa in la cadeeyaa hadee moogtahay qofku markii la rabo in blackmailing wax lagu sameeyo ama la madoobeeyo suuradiisa markii la rabo waxaa la isticmaalaa waxyaalaha aad sheegayso kala qaran dumis dawlad shisheeye u shaqeeya ilaa hadda waxaa la garanayaa dawladdan u shaqeeya tilmaama dawladdu waa laga karlaaya dawlad hebel waa dhihi laayihiin
markaas waxaa laga yaabaa inay dowladdaas badan kale yihiin ka baqayaan ayaga naftooda iyo inaysan jirin laakiin anigu dowlad shisheeyana uma shaqeeyo afkaarteydana wayba caddahayba inaad imaaraadka oo kale saaxiib gaara la tahay oo arrintii qadar oo xilligii lagu soo weerarayna kusoo beegantay baa dadku sheegaan imaaraadka adiga maxaa idinka dhexeeya wax naga dhexeeya lama arko dhowr jeerna waan sheegay hadda madaxweynaha tusaale yaraan ku siinayaa heshiiskii baarlamaanka soomaaliyeed oo ka hor yimid DB Wall iyo ku saabsanaa miiska madaxweynaha Soomaaliya wali yaala dadka Soomaaliya ma is weydiiyeen farmaajo imaaraad buu shaqeeyaa wuu saxiix ilaa hadda heersan wuu hor yaala labada gole ee baarlamaanka ansixiyeen ilaa haddana miiskiisu saaran yahay sharciyahaanna waxa waa doo madaxweynuhu saxiixi waa 14 maalmood gudahooda inuu dastuuriyan sharcigaas u soconayo laakiin miiska madaxweynuhu yaala marka waxaan ognahay asaga inuu dadaal iyo raadis ugu jiro inuu cilaaqaad iyo waxaas la kasbado dowladahaas marka wax iska aad waxa la yiraahdaa aan waxba ka jirin oo wax macna ay ku fadhiso aysan jirin oo haysta aniga inay tahay oo la rabo in lagu banaysto aniga xadgudubkayga markii lagu soo weeraray oo kale dhalinyaro badan oo qaarkood la sheegay in madaxtooyada la shaqeeyaan baraha bulshada waxay ku faafiyeen in halkaas aad ka waday abaabulo ka dhana dowladda oo qaar waxay dhahan lacag buu qaybinayay qaar waxay dhahan shirqoole kale oo maleegayay arrintaas maxaa ka jira maxkamadaha liigay Soomaaliya aniga waxa la rabaa dawladii waxa laga kari waayay soo gudbiyo waxa haysan shaqooladii iyo abaabuladii wixii inay keenaan yaa rabay wayna ku fashilmeen inay keenaan man u malay inay iga turi lahaayeen haday hayaan hatta haday maxkamadda hataa geynin inay Soomaali soo bandhigi lahaayeen oo nimankan wad garanaysaa social media aad u isticmaalaan inay keen lahaayeen cadeymahaas iyo waxaasan anigu aan u haystaa laakiin waa been abuur kale oo lagu banaysanayo wali xadgudubkii aniga sharafteedii iyo karaamadeedii lagu banaysanayo sababtoo ah adiga markii afkaartaada la diriri waayo ama fikirkaaga ama aragtidaada loo babacdhigi waayo waa in la dayo adiga suuradaada in la madoobeeyo waxa shaqeeyana hadeertaan waa in suurada Cabdiraxmaan la madoobeeyo ama hal dhaho dawladda u shaqeeya ama waxa soo wada ama waa qaran dumis ama sidii la rabo loo fasiro adiga marka hadda xisbi baad aasaastay aad hoggaankiisa tahay maxay tahay ujeedada xisbigaaga higsigaaga muxuu yahay shakhsiyan marka laga tago xisbiga guud ahaan waan ku sheegay anigana higsiga waxa ay fikirkaas xisbiga u taagan inuu hormaro anaga waxaan rabnaa san ku sheegnay dalkan gacan ka hadal waa ku soo daalay gacan ka hadalna waa ku sheegay wuxuu ku dhiman yahay qoladaas al-shabaabka ah fiiri way waa inaas sababta ay al-shabaab gacan ka hadalka u isticmaalayaan waa maxay kalsooni ay ku soo bandhigaan fikirkooda ma qabaan وهدي نمن اسكو كرسون يهين الشباب فكر كودي سوق سو دغي لهايين dadkuna haday ku qancaan lama hor istaagi karaba laakiin kalsooni daro waxa jirta in aan la qaadanaynin afkaartooda anigu waxaan u haystaa nin kasta oo gacan ka hadal isticmaala nin kasta oo kala tilisnimo isku daya nin kasta oo kaligii hal dhageysti yiraahda wuxuu kalsooni ku qabin aragtida iyo fikirka uu hayo laakiin hadduu isku kalsoon yahay wuxuu soo dhiga lahaa suuqa fikirkiisa dadka taageeri lahaa dad masaakiin inta la soo abaabulo la bixiyo maanta oo dhan waxa ma tariiso annaga waxaan rabnaa inuu hirgalo dhaqanka madaniga ee ku salaysan dadku inay xor yihiin warbaahintiina xor tahay hay'adaha dawladdu isdheeli tiraan isla xisaabtamaan nidaamka dimuqraadiga dawladda ay Soomaali raadinayso oo laga yaabo dad badan oo Soomaaliyeed isnahan war dawlad xoog leh oo karaamo leh oo sharaf leh oo madax banaanidii iyo ilaalisa iyo midnimadii Soomaaliya rabnaa taas waay waa dawlad sharciga iyo qaanuunka ku dhisan dastuurka ku dhisan qodobka hadda ku ilaatana dastuurka Soomaaliya wuxuu sheegayaa xisbiyadu inay sameeysan karaan qofku inuu ka tirsanaan karo xisbiga uu rabo si xor ah u soo bandhigi karo fikirkiisa asagoo wax idan ah weydiisanin dawladda dastuurka ku qoran tahay qodobka saatan waxa ku qoran in guriga qofka aan lagu xadgudbi karin xurmadiisa iyo karaamadiisa annaga waxaan rabnaa madaxda hadda joogto waxay madax ku yihiin waa dastuurka marka in dastuurkaas la ixtiraamo oo dad badan waxay ku leeyihiin dawladda in la mucaarada ma dawladda in la yeelo ma war dawladdu haday dastuurka sharciga ka leexato waa in lagu soo celiyo haliya sharciga iyo dastuurka waa inaad ku soo noqotaan anaga halkaas aan u taaganahay sideenaba dad badan oo dawladda taageersan baa jira rajo ka muujinaya oo Soomaaliyeed baraha bulshada aad u isticmaasho adigu Facebook oo kale waxaan aragnaa dad badan oo aad u naqdiya fikradaha qaarkood erayo irhaana ay ku geysanayaan inkastoo qaar ku taageersana marka lagu arko waxa dareentaa marka saameyn noocay kugu yeelataa marka waxaan ogaa inay abaabuleeyihiin waxaan dhib ugu haynin dadka haday mar inay abaabuleeyeen aad ogaato baaritaan la sameeyo oo la ogaado inay abaabuleeyeen waxaan ognahay xataa qarashka madaxtooyada ku bixiso
ciidankaas ku dagaalama Facebook oo aniga qaabilsan factiskiisaan haynaa macnaheedu numberka miisaaniyada gashaan haynaa marka dad abaabulan oo markaad aragtay magacyadooda inay ghost yihiin wax oo aan la garanayn ay yihiin oo 10 nooc ah oo qof kaligiis isticmaalaya 10 account wax dhibaato ah anaga hadeertaan ay noo keenay lama arko anaga waxaan rabnaa qofka fikir nagu jeclaan xasee ku cadaysan macnaha see ku ogateen media ka shaqeysa adiga naftaada waad garan kartaa account-ka saxda qof kale markaas Cabdisalaan adiga lagu yiraahdaa magacaaga iyo waa la qoranayaa iyo profile-kaaga cidda tahay goortaad account-kan sameeyay wax la sahlo la garan karo waa technically wax u baahan ma laakiin waxaan u baahanahay miisaaniyada ku baxdaan ognahay dawladda miisaaniyadeedu waa qoran tahay dadka baarlamaanka ay martaa uguma qorna Facebook dadku dagaalama miisaaniyada مدينة لويدية ماشي جيسي مركي لويدية برلمان كأنك معها جودي مالي ده مركو ويدية أنا دولتي وحيتري جودي هلا كلا درو هل مال ما مقاش دول ده يسو أفرتين لو مليون ما مقنع سان يكون بحر لما نهين جودي هلا كلا دري لقما جوابين العكتي مقنع ده ميزانية ده مركي الدولة ده أنا اسكود علمين هذا أنا هذيك waxay social media ku bixisay iyo say u isticmaashay iyo waxay ka shaqeyso oo dadka hadda shaarica jooga cid walba hadda waa ogtahay taas macnaheedu ma sameynayso laakiin Cabdiraxmaan mid istaajinaysa ma hagaag xagee u socda marka Cabdiraxmaan waan ku sheegay anaga xisbiyan leenahay afkaar ku dhisan yahay waxaan rabnaa Soomaaliya in afkaartaas ka hana qaato nidaamkaas dimuqraadiga oo madaniga ah oo dadku ay hortigiin rabaan inuu hana qaadaan mar walba oo magacaaga la maqlo ama wareysigan oo kale xataa marka hore dhiciisa la arko dadku waxay dad badan waxay ka qiyaas qaadanayaan inaad wax dhaliilayso marka ilaa hadda 2 sano kadib dawladdu wax wanaag ah ay qiraysaa ma jirto ay qabatay fiiri dhaliisha nafteeda in la fasiro u baahan dhaliish waa wanaag bisideedaba waan ka jawaabi doonaa su'aasha dhaliish waa wanaag dhowr maalin ka hor waxaan soo qoray heshiis ay dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka ku gaareen magaalada Baydhabo sax oo ku saabsan qaybsiga kheyraadka shidaalka iyo macdanta waxaan sheegay 4 qodob oo lagu heshiiyay inta laga booday dawladda intay ka booday rabto inay shidaalka Soomaaliya London ay ku xaraashto waxa kamid ah sharciga batroolka in la ansixiyo waxa kamid ah hay'adda sharciga xukuumaysa batroolka in la dhiso waxa kamid ah shirkadii batroolka Soomaaliyeed qaybileed ama suuqyada in la dhiso in golihii ugu sareeyay ee qaranka ee arintaas loogu noqolayo marjic u noqon la dhiso iyadoo intii la sameeynin yaa dawladii baxday waxay tagtay London waxay tii waxaan xaraashaynaa xirmooyinka aan blockiska Soomaaliya marka anigu ka jawaaboon iri war waxaan suuragal ma ayadoo intaan la sameeyay lama sameey karo dawladdu maxay ku qasbanaatay inay tiraahdo waxa aan sameeynayna ma aha inaan gadayno blocks ama xirmooyin ma ahane waxaan gudbinaynaa macluumaad ilaa hadda waxaan aaminsanay sax ahayn sababtoo markaan fiiriyo website-kii qoladii Spectrum shirka qabanaysay iyo qoladii Soomaaliya magaca bedelato qabanayo wali waxay rabaan inay xaraashaan blockiski anigu marka dhaliisha aan sameeynayo waxa waay waa dhaliilan ku wardiinayo hantida qaranka Soomaaliyeed sharafta iyo dadka iyo dawladnimada Soomaaliyeed marka anigu waxaan dhaliil uma arkay waxaan u arkaa inay tahay dhaliil wax dhisayso toosinaysa waxa ku soo haray dawladda haddii dad badan oo Soomaaliyeed waa dhici karta inay dhahaan Cabdiraxmaan muu sheego wanaaga ay dawladda ay leedahay anigu waxaan aaminsanahay dawladdu gaariga ay wado hadda waxaan joognaa magaalada Garowe haddaan kaalkacyo intaad waan aadaya ay tiraahdo adoo jidka Boosaaso fuulay ku arko intaan ka daba qeylinayo kule war soo noqo war jidka kan ma aha yaa dad badan waxa laga yaabaa inay u qaataan inay ay balaayo tahay laakiin adoo jidka mar hadda dhowr qofood biyo siiso masaakiina oo mid aad qoodiso oo mid aad lacag siiso dhibaataysan anigu uma jeedi karo waxaan u jeedaa inaan ku soo celiyo adiga ku soo celiyo jidka dawladda anigu waxaan aaminsanahay wadadii ka leexatay wadadii lagu soo heshiiyay oo dawladnimada Soomaaliya lagu dhisay la rabay ka leexatay qaylada marka anigii dad badan ay qaylinayaan waxay tahay war wadadii ku soo celiya ma doonay intay markay Boosaaso ilinkeeda tagtay inay ilaahdana dhahaan haddaan baraarugnayo jidka inuu qaldanay waa kaalkacay anigu ma doonay inaan dhaho dadkaasaan kamid ahay dawladda haya leh war ku soo noqdo wadadii tarma maxay tahay marka wadada lagu soo noqonayo fursadina ay sarba wadada lagu soo noqonayo waxa way Soomaaliya 3 arrin ay ku heshiisay lagama gudbi karo koow waxay ku heshiisay nidaam federaal ah laba waxay ku heshiisay dastuur dimuqraadi ah saddex waxay ku heshiisay awoodda in la qaybsado saddexdaas haddaad ka leexato oo awood qaybsiga ku xadgudubto oo dastuurkii dimuqraadiga ku xadgudubto oo nidaamkii federaalka ay ku xadgudubto macnaheedu waxa waaye gaarigaaga wadadii uu ka leexday mana rabnaa gaariga wadada laga leexiyo awood qaybsi maxay ula jeedaa
si awoodda sida loo qaybsanaya dee Soomaaliya hanaanka hadda aan rabno markii hore waxa lagu soo heshiiyay 4.5 inuu ahaado soo maaha waxaan rabnaa in inta laga gudbo hanaankaas awood qaybsiga kaasaan ka wadnaa qaybsiga awooddiina hal qolo gacanteed gelin hal deegaan ka hadlaya maadaama la qaybsanayo waxaan rabnaa qabiilka inta laga gudbo loo gudbo nidaamka xisbiyada loo gudbo dawladda marka waxaan ka sugaynaa anaga inay nidaamkii xisbiyada ahaa ay usoo gudbisaan rabnaa anaga hanaankii awood qaybsiga markaad hadlayso hadalkaagaas waa wanaagsan dhinac kale marka laga eego sawirka ag muuqda ayaa ah in dadkeena mucaaradka ama dawladda ku kacsan oo dhan aad hal gobol ka soo jeedaan ama hal reer aan idhaahdo ma aaminsantas inay sax tahay dad badan oo Soomaaliyada ka aragti duwan dawladda Soomaaliya hadda jirta xisbiga oo kale dadka ugu waaweyn xisbiyada kale ee mucaaradka oo kale rag badan oo aad meel ka wada timaadeen baa la yiraahdaa حتى برلمان كرجع كتيرو. دولة الصومال هذا معمول جولات كويس هيان جبلان وحيس هيان كي هذا عبد الولي قاسم عشان كتير هي صومال لانيس هيان أفضل سأقطع قيادة كبحيسة يعني أنت كي إيمانيسي اللي بعتذر كي إيمانيسا بيدبي وحي كسمين وقتها وهذا يكون ضد كل عيني كحرين ما كان ما مثلا إن حلقتها إيش يو ماشي هلا. مرنا ما يسكت إذا إن أرمها دولة كلها لسه إنها تكود هذا شان. لحدي بلادهري. لحدي بلادهر وحسكت دينيسي مسجنك برايفت كليلا أما سيه هوس إن أنا وش يقولون ورنوي هل كان ضدك وحكى كان هدول اللي منها كسر لبتوضي ونوي هل كان وداني من اللي راتين بل هل نتفلي وباش هل قبته هل كان اللب بودي سن أنجوجينه لكن وحنا موقتي إن أنا قبل كان لحبة كبعد باللون إن سي موقته ببلغ وهذا الله ضد بدن الصوماليين دي بسنة يعني دعيس مركز لكن هذا وعلى سوق جاري حل قف كستو الصومال وقنعي لمن كان إنه يهين يا هذان كريدة إنه يهين ضد بدن الصوماليين يا كوقنع سنة هذا إرتان قيبه الدنبي ورئيسك إن سوق جارني إن هذا حديث مدح الدولة دايدين سوبرنيكان وهذا الإيانات له هذا شان حد كيرس أنا مرة وهذا ديدنا ما بجرته waxaan rabnaa waliba 2 sano hadda qasaarsi oo dhibaato iyo maamul goboleed ridid iyo mucaarad la dagaalan lagu dhameeyay waxa dhiman waa 2 sano doorashadii ka dhiman waxaan rabnaaba in laga heshiiyo ku hanaanka doorashada 2 sidii doorashada loo hirgelin lahaa 3 waxa sidii dawladda hadda waxa ugu xilka ugu muhiimsan dawladda saaran ma garanaysaa waa inay muujisaa inay xilka si nabada ku wareejinayso inta oo gaas halka ka sameeyay yaa laga rabaa farmaajo oo ah inay muujiso in xilka ay si nidaam oo dimuqraadi ah oo nabadgelyo ay ku wareejinaysaa dad ka shakiyeen laakiin xaq u leeyahay mar labaad xataa in la doorto Soomaa dastuurkaas inay tamalatas laakiin hanaankii doorashada ay ku dhici lahayd si nabadgelyo xilkan lagu kala wareegi lahaa si nabadgelyo inay hadda ka shaqeeyaan ay muujiyaan bas hadda u hartayba howl kale hadda weyn anaga aan ka sugayno ma jirto iyo dastuurka la dhameystiro qayb ka arintaas ayada ah labadaas hadda uga fadhinaaba dawladda hadda irtaan dad badan waxay kugu dheelaan maadaama dawladda Sheekh Shariif la soo shaqeysay oo aad mas'uuliyiin ka soo noqotay tii xasan adooyeen kala shaqeynaya talooyin badan dabacsiinaysa saameyn ku lahayd dhismaheeda iyo hor u socodkeeda dawladdan wuxuu mucaaradaya odaygu dan gaar ah oo laha ama in xil loo magacaabo rabo markuu waayna 6 bilood kadib afku fartay way siyaasadda Soomaaliya sideedaba dawladda Shariifna anoo wasiiraan ka tagay oo halka iska casiilaaday dadka Soomaaliyeed ogaadaan u baahanahay waxaan iska casiilana waxay ahayd waxaan arkayay sidii aniga aan wax ila muuqdeen igula ma socon kaligeena ma dhowr wasiiraan maalintaas halka iska casiilay oo ka xasuusto wasiirka hore arrimaha dibadda Omar iyo nin kale wasiir dawladda ah حسن معلن يلاده ما تحتويه كأولي وزير دولة واحد سكوا عزيزين لو حد أركتدي أن ربنا يستأنا وأركين ومسؤولين مركا أنجا هدان حلدون هاي وحال أركي لها إن سجد الجنانو ما راح ضوء عمرنو إسكا أمانو أقول دوسيات إن عكا قادنا نوراد أنكو هاينا مرة أنجا نوعس أنجا وحرمنا إن هذا قولها وزير هذا اللسان نصيب درة إن كهذا مرة ضدنا صاحب بدأ يكجرو وحيالان حكومة دا سكوا مشغولين لكمتها صوتوا أهدارش كده كله وضع قلدن وحي إسكان نقدان ضد وحي لكينبا إسكان مرينا قلب رجع حال ديبا أوكي وحال كلا برلمان كيا قدوني برلمان كلا ريدا يا أوكي بيدما لو يرى يا أوكي هبل على سلحرة يا أوكي هبل على الجدولة يا أوكي وحسكن قدر رامر استام واحد ده شعبط لسكر رفنايو وحلا عليه وحي للربو لكن أنا أقولي وزير أن كمدها هذا كوشة يكوي كده بيجي برونتي أن كور قبو دوّا سعت بدكوا واسديد أيان ولا سحيي قفل برأي سوالة يقعني وزيره ما أهين ده أخذوا عسن رئيس الوزراء حكومة دي سما أهين ساسان لجوم مثلا كونستوانسي واحد يا ديجانا ده يدك لجوم مثلا دتكو إني ده مدح بنان أو حرة أو عبيد وأهين كرسي كوفديان أحد مدح بنان رأي جودي أركتيدو ده يدك ديجانا ده مثلا مثلي كريم. وقدام بنتي فرين ما أنت بالشدة الصومالية أي كاقرة
oo taariikhda ku gashay berita ka maalin oo aad dhihi lahayd mid kula aragtay iyo mid ka aragtay duwanba maxay noqonaysaa dadka Soomaaliyeed waxa taariikhda galaya waxay tahay inaan uu ka wada shaqeyno sidii dalka Soomaaliyeed oo ku heli lahaa dawlad mid ah madax banaani buuxda iyo nidaam dimuqraadi ah oo dadku iyo dastuurkana uu sareeyo sharcigana uu sareeyo dadkuna ay xor yihiin taas oo ay taan dhamaanteen u wada dirirayno taas oo ay dawladaha dariska nala ah fiiri dawladna waa Ethiopia waa nala daris dawlad kalena waa Kenya sharciga taliya Ethiopia qoriga taliya Ethiopia maanta meesha maras waa u jeedna Kenya maanta meesha joogto waa u jeedna 9 milyan intaas oo foodo helay madaxweyne Uhuru Kenyatta maxkamad saraatiri doorashada sax ma ay ku noqo markaas lagu noqday ma garatay markaas wali ninkii mucaaradka inta diiday oo istaariyo yiri madaxweynahan ah ana wali inta meel istaagay madaxweyne isku ma dhaarin kaliya waxaan sheegay ra'yigayga kaliya markaas ku invite gareeyay hoygiisa oo yiri walaalo talada aan wadaagno waxa keenay institutionka iyo nidaamka dimuqraadiga waay annaga ka rabno Afrika kaasa bilaw waxa deertaan dunida kale way tagtayba annaga nidaamka aan generationkeena iyo jiilkeena soo socday iyo fac soo socdo ku hana qaado waxa waay nidaam isla xisaabtana dastuurka iyo sharciga oo sareeyo kaas aan ka wada shaqeyno qoray iyo xoog iyo kala talinimo waxaan u deynay nimanka la yiraahdo al-shabaab ma rabno namuudajkaas iyo noocaasna dooni mayno kaan rabnana kaas waa dadka Soomaaliyeed inay kaas nagala wada shaqeeyaan u baahnaa aad iyo aad buu mahadsan yahay hogaamiyaha xisbiga wadajir ee siyaasiga saameyntiisa badan tahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo maanta marti u ahaa barnaamijka Marti Soor ee warbaahinta Darajir aad baad mahadsan tahay Cabdiraxmaan